ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa AMISOM kala wareegay hogaaminta howlgallada amniga ee gudaha Soomaaliya kadib shir 2 maalin Muqdisho uga socday ciidanka xoogga dalka AMISOM iyo xubno ka tirsan beesha caalamka. AMISOM ayaa la hoosgeeyay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya sida uu dhigay heshiiska maanta taasoo qayb ka ah qorshaha la doonayay in guud ahaan amniga Soomaaliya loogu wareejiyo ciidamada Soomaaliya. anigoo wax allaala iyo wixii ciidamada SNA-da ku aadan ballan qaadayna hirna gelinayna inay dhaqan galaan ka shaqaynayna wax kasta ee ka soo baxa halkan waqtiga loo qorsheeyay iyo sida loo qorsheeyay inay u dhacdaan ku dadaali doona waxaan rabnaa saaxiibadeena nala shaqaynaya sectorsku inay arrinta ayada xoogga saaraan dukumiintiyada iyo natiijada halkan ka soo bixi doontana aysan noqon kuwa un hadal ku eg ee ay noqdaan kuwa hirgala oo dhaqan gala. ciidamada xoogga dalka ayaa kol hore kala wareegay amniga degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada AMISOM